akhyaaray kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay isbedelka lagu sameynayo dastuurka Itoobiya oo ay wadatashi ka socda Addis Ababa ku leeyihiin ergooyinka kala socota maamulada Itoobiya ayaa lagu ansixiyay in dastuurka laga saaro qodobka 39 kaasoo gobolada siinaya xaq ay uga go'i karayaan Itoobiya sida maanta ay warisay Al Jazeera. sidoo kale waxaa la ansixiyay in Amhari, af Oromo, af Soomaali, af Canfar iyo af Tigray loo aqoonsado luqadaha shaqo iyo qaran ee Itoobiya. Abiy waxa uu qaaday wado u egti Erdogan kadib markii shirweynaha wadahadalka qaran ee Itoobiya ka socda Addis Ababa lagu ansixiyay wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka Itoobiya kaasoo ka saaraya nidaamka baarlamaaniga una wareejinaya nidaam madaxweyne. haddii uu wax ka bedelka la dhaqan geliyo, Abiy waxa uu noqon karaa ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay ee Itoobiya waxaana xilka madaxtinimada lagu dooran doonaa muddo 6 sano iyadoo madaxweynaha loo ogolaanayo ugu badnaan 2 muddo xileed. si kastaba ha ahaatee, arrinta xiisaha leh waxa ay ku jirtaa faahfaahinta xadidaadda dastuurka Turkiga. isna waxa uu madaxweynuhu ku xadidayaa 2 muddo xileed, balse haddii baarlamaanku go'aansado in doorashada la soo hormariyo inta madaxweynuhu ku jiro muddo xileedkiisa labaad, Erdogan wuxuu heli karaa fursad uu mar saddexaad ugu tartamo oo ah arrin uu hadda indhaha u ku hayo. sidaa darteed, haddii Itoobiya qaadato nidaam la mid ah kan Turkiga, su'aasha weyn waxay noqon doontaa sida loo qeexayo xaaladaha doorasho ee la soo hormarin karo iyo intaasi madaxweynaha siin karto fursad uu mar kale ugu tartamo. taasi waxay Abiy u furi kartaa muddo uu awood ku sii joogi karayo muddo ka dheer 2 muddo xileed ee caadiga ah haddii uu doorashooyinka la soo hormariyo.